السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامجكيني محي كلتهاي سندكي وقدم بي لبدي كن يلباتنكي ينتي كورونادو أدونك أي كجرتي waxay hayd sanad aad u dhib badan oo adag talow sanadka baxaad ka baratay ama anigu baxaan ka bartay sanadka koroonuhu u jiray ama koronada 10 far badan baan ka bartay waan doonay maanta inaan idin la wadaago ta koobaad waxa weeyaan awoodda Ilaahay waxba ma hor istaagi karo markuu bini aadamku uu kibro uu ismoodo inuu awood uu leeyahay awoodiisa markasta Ilaahay awoodiisa ayaa ka weyn waxaan ka bartay noloshu inay second isku bedeli karto oo waxyaabii la islahaa dib looma dhigi karo ina dib loo dhigi karo waxyaabii la islahaana ma dhici karto inay dhici karto iyo waxaan bartay waqtiyada adag inay bini aadamka 10 adagna ay barto oo waqtiyada adag ay ku barayso xaqiiqada nolosha iyo xaqiiqada dadka aad la nooshahay koroonihii wuxuu i baray inaanan la qabsan nimcada Ilaahay oo aanan ka soo qaadin wax weligii aan haysanayo ama wax caadiya oo qiimaha nimcada caafimaadka iyo ahalka iyo qaraabada iyo inaan wadada aan maro anigu aan baqaynin inaan qiimaheeda dareemo qiimaha inaan wadada aan maro anigoo faraxsan oo aan baqayn oo wajiga mara ku xidhnayn koroonihii waxaan ka bartay inay fursadda ugu qaaliga nolosha inay tahay fursadda nolosha haddaan maanta aan noolahay oon koroonihii ka badbaaday dad kalena koroonihii daraadeed ay u dhinteen haddaba inaan chansiga nolosha aan ka faa'iido oo noloshii adduunka aan wax ku soo kordhiyo koroonihii waxaan ka bartay in imtixaanka nolosha loo adkaysto oo noloshu imtixaamo fara badan ay soo mari karaan ay ka mid tahay dadkan jecelnay inaan waayi karno ama shaqooyinkeeni inaan ka tagi karno ama nolosha isbedeli karto ilaahay wuxuu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim inama yuwaffa as-saabiruna ajrahum bighayri hisaab sadaqallahu al-azim samir yaraali inaan ka noqono qadarka ilaahay koroonihii wuxuu i baray inaan dareemo dhibaatada haysata dadka maxaabiista jeelalka ku jira khaasatan dadka dulmi lagu xabisay sida muslimiinta jeelalka yahuudda ku jirta ama dadka muslimiinta ee rohingada ee maxaabiista ku jirta ama igoorka ee maxaabiista ee China ay xureen ay jeelal ay ku gureen khaasatan marka karantiimadii laygu xuray ee bilo fara badan guryaha aan fadhineen gurigan ka bixi kari weynay daraada koronaha inaan dadka maxaabiista aan dareemo dhibaatada haysata oo aan u duceeyo koronuhu wuxuu bartay inaanay dhimashadu aanay garanayn faqiir iyo qani ama qof caana iyo qof aan la garanayn ama qof yar iyo qof weynba inaanay kala garanayn oo dhimashada inay waajib tahay in loo diyaar garoobo koronadii waxay bartay ina halyeeyada dhabta ee nolosha ama bulshada inay yihiin dhaqaatiirta iyo neerasta dhakhtarada ka shaqeynaya oo halyeeyada dhabta inaanay ahayn fanaaniintan xafladaha sameynaya lacagta lagu burburinayo ama dadkan kubadda ciyaaraya ee caanka ee lacagta farabadan la siinayo ama aanay ahayn dadkan Instagramka ama Facebooka ama TikToka ku caanka ee malaayiinta ka hela YouTubeka ama channeladan social mediada halyeeyada dhabtee nolosha waxa weeyaan dhaqaatiirta iyo neerasta naftooda iyo caafimaadkooda khatar galiyay daraada dadka kale inay xanuunkan ay ka badbaadiyaan koroonihii waxaan ka bartay inay waajib tahay dawladdu lacagtan farabadan ee ku khasaareynayso xafladaha ama doorashooyinka ama waxyaabaha bilaa macnaha inay waajib tahay inay ku dhisto dhaqtaro qalab wacan leh iyo dhaqaatiirta in cilmigooda la xoojiyo oo wax la baro iyo in cilmiga la xoojiyo oo laga sii fiicnaysiyo sidan iminka uu yahay koroonihii waxaan ka bartay inuu waqtigu yahay nolosha dad farabadan oo karantiimada ku jiray ayaa waqtigii farabadnay guryaha ay fadhiyeen ay waxay ku lumiyeen television inay daawadaan ama YouTube-ka inay ku jiraan ama inay ka cariisan yihiin meeshan iyo gurigan ay ku xiran yihiin dadka qaarkoodna waqtiga ayay ka faa'iideen oo waxbay barteen ama cilmi bay soo kordhisteen YouTube-ka ay ka barteen ama quraankii bay xafideen koroonihii waxaan ka bartay waxa ugu muhiimsan nolosha inuu yahay qofku inuu lacag saving uu meel u dhigto
oo lacagta aanu taabanin markii dhibaato ay noloshiisa ku timaado ama wax sida koronaha oo kale ama shaqadiisa uu waayo in lacagta saving uu meel u dhigtay inay badbaadin karto noloshiisa taas waxa weeyaan casharadan ka bartay koronaha talow maxaa idinkuna ka barateen koronaha maxay idin la tahay waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh